الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. maanta waxaan doonayaa kelmad ama laba ka idhaahdo Somaliland iyo crisis-ka cusub ee siyaasadeed ee imika taagan, maadaama crisis-kii xamar iyo problemkii halkaa ka taagnaa lagu soo guuleystay oo kaligii taliyay laga saaray. weli kaligii taliyayaasha ma dhammaanay, kii Somaliland baa imika harsan oo u muuqda inuu isagu ka yaro xoog badan yahay kaa hore. waxa weeyaan laba kelmadood ma doonayaan maanta halkan idhaahdo, ma saddex ma doonayaan idhaahdo. mid dadka waxgaradka ee reer Somaliland baan doonayaan idhaahdo, midna Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin iyo xukuumadda ay hogaamiyaan labadaa korneyl ayaan doonayaan idhaahdo oo labadan in ugu horeeya. midna qolada mucaaradka ah ayaan doonayaan idhaahdo. waxaan ugu soo horeysiinayaa ta Maxamed Kaahin iyo Muuse Biixi. Muuse iyo Maxamedow ma jiro qabiil Somaliland dego oo dhammaantii ama dad Somaliland boqolkiiba 40 ama 50 ah oo ah Soomaali weyn ma jirto. halganka ASLM sheegataan dadkii ugu badnaa bay ahaayeen dadkaasi. Somaliland tan dadkii ugu halyeysana bay ka maanta nabad raadista ku jira Cali Warna Cadda kamida, Cabdi Waraaba kamida, dadkii asalka iyo waxtarnimo u ahaa dalka ayaa qabiilkaas Soomaali weyn ku sheegaysaan uu yahay. caqligeedii siiyayna maanta shalay wixii ku ololeyseen dadka qaarkood idin ka yeeleen maanta mar labaad ku celisaan. horta caqli wanaagsan ma aha, ka toobad keena. ururada leedin waa la furayaana, idinku xaq uma leedin ururada inaad furtaan. xaq ururada waxa u leh madaxweynaha Somaliland doorato 13 November hadduu de Muuse noqdo iyo hadduu Maxamed Kaahin noqdo iyo hadduu Cabdiraxmaan Ciro noqdo iyo hadduu Faysal Cali Waraab noqdo iyo hadduu mid kaleba noqdo, ninkaasay u taalaa ururada in la furo iyo sidii ururada loo furi lahaa. ninkaasay u taalaa, shaqaydinka maanta idin taala maaha. taana ka waan tooba. waa laga yaabaa inaad muddo kororsi doonaysaan, laakiin muddo kororsi aad raadinaysaan yaanu dalka haadaan ka tuurin. Muuse dalkan si sharaf leh baa lagugu dhiibay, dadka oo dhan baa lagugu jujuubay, xoog iyo xeelad iyo siyaasad wax kasta waa lagugu saaray. raggaa maanta mucaaradka ee waddanka jooga geed baa lagu xidhay, waanay aqbaleen. 5 sano waad haysatay, laba wado waa kuu furantay inaad iska tagto aad war anigu alxamdulillah intaan haystay waan haystay iska tagto. mala tegi maysid bay la tahay, iyo inaad doorasho gashid oo aad doorashaan gelaya. teen yarida sunnaha ahayd ee kororsigu haddii laga fursan waayo oo duruufo yimaadaan si kale duruufi waad samaynaysaa, laakiin duruufi samee. laakiin waa inaad dadka aad ka ilaaliso caadifada aad horu gelisay iyo midnimo la'aanta aad horu gelisay aad ku sii kordhisid. waxaad ku sii kordhisay inaad ka ilaalisid. taa intaasaan kaga tagayaa. Muuse iyo Maxamed waxaan leeyahay ma jiro dad Somaliland degan oo Soomaali weyniye waar dadka qaladka ka gelinaya dalka wixii Ilaahay idinka siinaya waa ka qaadateen. iskaga taga oo si sharaf iyo wanaag leh baa idinku dhiibay, si sharaf iyo wanaag leh uga taga. waxaan ku xijinayaa ta mucaaradka Cabdiraxmaan Ciro iyo kooxdiisa iyo haddii Ilaahay mariyo Faysal Cali Waraab iyo dadka taageersan aad baa u xanaaqsantiin oo ka kantiin. waxaana kelmadda idinku horeysay idinka soo boodaa ay noqonaysaa qoladiina mucaaradka ah. waanu dagaalamaynaa, xabad baanu ridaynaa. waraadeen xabad dalkan uma baahna, xabad la rido dalkan uma baahna, mana qaadi karo. dadkan abaar baa haysataa, kama hadashaan. waxaa haysataa noloshii oo dhan baa ku adag, dowlad xumaa haysataa, nidaam la-darra haysataa, kama hadashaan. markii wax la soo booysaan xabad way dhimanaysaan, ma dhimanaysaan. ayaar qunyar waxaaba ku filan nimankan, niman saa u qar adag maahe. waxaa ku filan 7 mudaharaad wadaan oo dariiqyada istubtaan, wadnaha Hargeysa istubtaan, waad madaxtooyada intaas hor tubtaan oo Cabdiraxmaan Ciro adigu aad hogaamisaa dalkaasi soo taagto, taageerayaashaadana u baaqdaa ku filan oo waxba kala socon waayaan. xabad dadka gaarsiinine dadka sidii dowladeed iyo nidaam dawliya bar, si loo mudaharaado bar, si nidaam dowladeed bar. dowladnimo loo baahan yahay, looma baahna xabad iyo inaad taado tolay garxajiso ka kacayo dagaalama. garxajiso hadduu dagaalamo beelaha kale oo la dagaalamay dagaalum bay noqonaysaa. maxaad faa'iiday markaa kursi ma helaysid oo xameed. laakiin dadka reer Somaliland waa ku ogol yihiin, waa ka daaleen nidaamka maanta jira. isbedelka way u baahan yihiin. dadka isugu faalay iyagoo wada socda, adiga hogaamiyayaashaada oo dhan mudaharaad silmiya gobol walba ku soo bandhiga. 7 casho hadda dariiqada fadhidaan oo gaari walba dariiqa ku goysaan, dariiqada soo tubtaan. waxa weeyaan dowladdu markaasay tamarteeda ogaanaysaa. waayo askartu markay 5 qof 4 qof way dilayaan horta oo kulli marka hore waa caga jugleynayaan, laakiin haddii dhaqaaq weydaan waxa weeyaan iyaga sidii nidaamyadii ka adkaaba saas sameeyay. nidaamkan ka adkaa ee Masar lahaa ee Tunis lahaa ayaa nidaamkaas sameeyay. dariiqadu baa la istubay. adeerna laabale awalba gaajaan u dhimanayna nidaam xume. marka
taa adigoo heli karaya inaad dadka qoryo u dhiibtaad ciidan samaysato oo aad taado ii dagaalamo ii dhinto maleeshiya kasoo dagaalama meel heblaayo waxba kuma anfacaysa cabdiraxmaan ciro iyo faysal labadaba saasaan u sheegay iyo xisbigooda iyo taageerayaashoodaba soomaali weyna annagaa og inaydaan ahayna dad reer somaliland tiino weliba sharaf iyo karaamo ku leh taa ku biyo caba dadka waxgaradka ee somaliland hal baan leeyahay dadka caqliga u saaxiibka ah hal baan leeyahay waxaan leeyahay mar aan waxba laga qaban karin inaad gebgablaysaa waxba kuu tari mayso maanta ninka qaldan u sheega oo taga dadka waxgaradka Soomaaliya barigii daahir yaale iyo xilligeedii waxaan garanaya iyadoo dad badan oo waxgarad oo sheekh dir iyo hogaaminaya culimo waaweyn iyo si abwaano ayu taga daahir yaale wadanka fudada ka daa nimankan waa mucaarad adigu daji adiga madaxweyniye oo taga ninka xukunka haysta kuwa mucaaradkan oo sheega waliba qolada mucaaradka labada wadankeena imika maanta aragtida maanta taala qolada mucaaradka degan marka la eego qolada mucaaradka degan buu yani wax xiriirinaya labadan korneyl iyo waa laga yaabay weeyeen marka waxa weeyaan dalka u tura oo qoladiina wax dadka waxgaradka ee aqoonta lahow jaamacadaha day tahay dadka kale akademiga day tahay culimada nidaamka maanta wadanka ka taliya ee abuuraya foodada iyo xasarada abuuraya muuse bixiye nidaamkiisu xasarada iyaga abuuraya dalay dejin karaan bay xasarada ku abuurayaan marka xasarada waa inaad dejisaan oo taadaan war maalinlaan waxba laga qaban karin ma rabna inaad dalkani burbure oo dadkani nabad daayar bay ku nool yihiin dadka dawladdu waxba uma tarto hargeysay biyo siin kari laaday dawladdan 30 sano jirta hargeysay biyo ka waraabin kari laaday oo reer hargeysa oon iyo haraad ugu dhimanaya iska daa mid miyi joogay meel kala joogay marka waxa kaliya ay haysaa waa booliiska ay nabadda ilaalinaya ee maalinba inkastoo iyaga laftirkooda maalinba ninka xukunka haysta ku adeegto waa nabad daayar adeer nabadda ka ciyaarina meesha maalinta waqtigaagu dhamaado iskaga tag haddii kale sanaduuqda dhig haddii la doono ha lagugu guree midkaa kula taliya oo dadka dee maanta qaladka u sheego kala qabta oo dadka maanta kala qabta waayo maanta waxaad qaban karto birri ma qaban kartid hadday bahasha faraa ka baxdo oo mucaaradkaasi dagaalamo oo dagaal ay gaadho oo jabhado bilaabmaan oo la iswada sii naco waxba birri ma qaban kartid maanta wax la qaban karaa aad iyo aad baan idin salaamaya waxaan leeyahay maanta waxa la qabto madaxweynaha iyo dowladdiisana waxaa leeyahay waa nidaamka ilaaliyo dowladnimada kusoo noqdo dalkan si sharaf iyo karaamada baa lagugu dhiibay madaxweyne dadkii kuu dhiibay ku ololeeyay baan ka mid ahaa anugu maantana madaxweyne u soo noqo nidaamka iyo sharafta iyo karaamada haddii laga adkaado waa sharaf bay ku tahay haddii lagu dhiib imika doorashadii reeda maalinta ta qabatay sharaf iyo karaamaad ka hesha ha ku ciyaaren legasiga keliyaad haystaa waa doorashada yar baad qabatay ha iskaga ciyaaren mid kala qabo oo kasii wanaagsan buuqa iyo xasaradan wadanka ka daa dadkana been iyo huuhaa dhiqi mayso dadku wax badan bay garanayaan ka daa aad iyo aad baan idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu